أيها الأحبة، درسي هراء كصاب سيسنا السلطان سليمان ابن السليم ابن بايزيد ابن محمد الفاتح ابن مراد وحين كقورني جودهان تاريخ كوبانو كمد وحيابه وقبطي سدو دوبي نوت المامن وحل عدصدين إنه حوقه تفصيلك بحنه، لكن كل بوا أدقتهاي درسي ساعدي وحكي يرسعوني نين مسلمين توتليني لحية أفرتن سنادات إن لقو سوكوبة تاريخ ديس هداي دقالتهاينا صدح طبان دقالو واوين قالي waxaan isku dayi doonaa caawa 2 sano ka mid ah inaan tilmaamo waxaan soo sheegnay inuu dhashay 1495 meelaha uu guursaday 20 jir markuu ahaa ama 1515 markay taariikhdu maraysay waliyul cahdiga qura أما ننك قرى السوقية خلافة العثمانية أما الدولة العثمانية قايبة كم ذي عيبها إلى هاي وحكم ذا السلطة اللي يسكت لي جري إنما كان رحلة يا أنت بدن عدوى لبا عيبها إلى هذا لكن نقول جنر الإسلام كوحي وترى بينك هذينا يسقول لكن أبيه كلي يجيبوا على وحرقة والسلطة عدكو هيستي ما يشيرين ولي الأمر مركو ها 3 ويلو يرير بولها waxaanu leeyahay 3 sanadood kafa meel la yiraahdo buu ka soo ahaa amiir 7 sanadoodna Manisa iyo Adirna labada gobol ee kala ama labada magaalo kala abu amiir ka soo ahaa magaalooyinkaasi ayuu noloshiisii hore ku soo qaatay Trabzon oo ku dhashay kafa أديرنا اسطنبول مانيسا إنها سبو نولشي سيهورا كسو قاطي إساقو خبرة إدارية له أما سياسي بسلادي إساقو أو 8 سنة مامل كسو جري وحانا يدقنوا هذا ديوغاس خلافة يهورا عثمانيين تا ويلكو إساقو دالين يرابا إمارة اللودي بجري لكن لقو مسيدين جرين كو هو يدي بالراعين شري معلم كيسال الراعين شري مربي كيسال الراعين شري جروب دن يجوا لكن الرباين ويل كان لا تبابره يا إمارة دلقو بلا بشري مركوحو إمارة سو هي ولي الأمرية أو قبل الصوم مولاي مدة 8 سنة ضوضة تعلين مركوهورنا في عن oo ku saabsiisan jawaanib badan walaha waxay dhaadaan farsamo yaqaan buu ahaa waladan dahabkiiyo waxa la dhalaaliyo dhagxanta yaqaana uu ahaa luqadka ilaa 4 luqu yaqaanay gabyaab uu ahaa tadriibaad siyaasi soo barto la soo siiyay tadriibaad askariya la siiyay nin markaas dhisan oo maamul u dhisan buu ahaa wuxuu kaloo soo joogay iyadoo siraac waxoogaa uu dhex maray aabihii iyo awowgii marka maamulka loo dhiibay awowgii baa madax ahaa mar dambe ayaa wiil u dhalay iyo askartu waxoogaa yar gadoodeen odaygii baaba ka tanaasulay marka siraacaadkaas dawladda gudaheedana khibrad buu lahaa uu soo joogay markii loo magacaabay madaxnimada wadanka aabihii markuu dhintay sadrul acdamka waxay dhaadaan waa wasiir al-awwal waa prime minister ra'iisul wasaarihi wadanku uu u yeedhay mansabka uu ku fadhiistay qaraaraadkii koowaad ee uu soo saaray wuxuu ra'iisul wasaare ka dhigtay ninkii hore ee ra'iisul wasaaraha biiri Mohammed Basha ninka la yiraahdo ra'iisul wasaare waqti doora soo ahaa laba
wuxuu mansilad wasiiru soo dallacsiiyey murabbigiisii tababari jiray qaasim bak nin la yidhaahdo rutbatul wasiir buu soo gaadhsiiyey marka wasaaraddu 4 bay noqdeen sadri lacdamka qaasim bak mustafa baasha iyo farhaad baasha 4 wasiir buu lahaa waxyaabihii koowaad ee uu ku dhaqaaqay waxay ahayd warbixin baa loo diray dowladahay saaxiibka ahaayeen in kursigii ninkan loo caleemo saarayo uu fadhiistay qaraarkii kale ku xigay uu soo saaray wuxuu ahaa in la dhiso cimaarad khaana waxay yidhahdaan waa mu'asasaadka khayriga ah mu'asasa khayriya oo dadka fuqarada iyo masaakiinta iyo dadkaan waxaysan ama dadka socotada iyo waxaasi meel ay wax ka cunaan oo wax laga siiyo dhar la siiyo laga taageero oo uu hadiyeeyay aabihii oo dhintay markaa iyo jaamicad uu dhisay iyo iyagu nimankaasi caaday lahaayeen boqorradooda dhintay inta badan qol yar bay ka dul dhisi jireen qolkii yaraa aabihiina wuu dhisay waxa uu bilaabay inuu yidhaahdo shacabka dhammaantii cadaaladdu waa inay gaadha wuxuu soo saaray marsuum sheegaya aabbihii markuu dowladda qabsaday ee uu ballaadhinayey waa kii safawiyiinta qabsaday caasimaddoodii tabriiz la odhan jiray dowla almamaalikna caasimaddoodii qaahiro la odhan jiray buu qabsaday labadaa dowladoodba wuxuu ku soo daray dowla alcuthmaaniya dabeetana labada gobolba farsamo yaqaanadii joogay wuu soo qaaday 600 ilaa 800 oo farsamo yaqaan ama injineer iyo umara buu soo kaxeeyey oo istanbuul keenay odaygii hore ninkani markuu meesha qabsaday dhammaantood wuxuu fasaxay nin waliba meeshii uu rabay ama meeshii uu deganaa inuu ku noqon karo waxa kaloo mamnuuc ahaa tijaarada eeraan ee xariirta lala tijaareeyo iyana wuu fasaxay tujaartii khasaaruhu ka soo gaadhayna wuxuu yidhi ciwadkii ha la siiyo ha loo magdhabo wax allaaliya wixii dhaqaala xumo ka soo gaadhay maamulkii askarta iyo maamulayaashii idaariyiintaana wuxuu yidhi wax allaaliya wixii shacabka dhib u geystay waa in taxqiiq lagu bilaabaa hadda waa in la bilaabaa taxqiiqaad cid allaaliya ciddii dhib geysatay tusaale ahaan jacfar bak nin la odhan jiray oo ciidamada badda haysan jiray oo sanjaqa khaalibuli la yidhaahdona madaxuu ahaan jiray baa ka mida raggu ku bilaabay jaraa'im waaweyn baa ku caddaatay bay yidhaahdaan dil baa lagu qaaday markii dabeetana November 1521 ba waa la dilay waxaa ka mida nimankii xukaamta ahaa iyo gobollada ama hareeraha sanaajiqda haysaystay qaar ka mida maalan nin la odhan jiray brisren oo lagu soo eedeeyey dad xora inuu iibiyey intuu dad xora qabtay inuu cabiid ahaan u iibiyey kuwaana waa ciqaabay waxaa la soo sheegay silaaxdaarka waa ciidanka qalabka sida rag ka mida oo bulshada dhib u geysan jiray inay jiraan dhammaantood kuwaasoo dhanna ciqaab ha la wada mariya buu yidhi wuxuu soo saaray inuu oggolaado boqorkii ugu dambeeyey dowla alcabaasiya ee qaahira fadhiyi jiray magacyaalka iska ahaa aabbihii markuu saltanada kala wareegay aabbihii baa ah awal rajul khilaafa cuthmaaniya sheegtay inuu muslimiintoo dhan khaliifu yahay ninkaas markii uu kala wareegay wuu soo qaado istanbuul buu isagana keenay isna wuu fasaxay oo wuxuu yidhi qaahiradaadii hadday aad rabto waad ku noqon kartaa waxaasoo dhamme waxay muujinayaan aabbihii nin adag baa lagu tirin jiray ninkani inuu yahay nin khilaafada qaab cusub waxu wada oo raba inuu cadaalad bilaabo oo dadka cadaalad ku dhaqo shacabku waxay u qireen markaa ninkani inuu yahay nin boqortooyadiisu khayru ku jiro idaariyiintii iyo dadkii maamul yaqaanka ahaana waxay ku qanceen nin yar inaanu ahayna nin wax maamuli kara inuu yahay markuu idaarada qabsanayo waa nin 26 meelaha jira markuu boqorka noqonayo laakiin 2 biloodba intii aanu joogin waxa bilaabmay nin tamarrud sameeyey cisyaan dawladda ku sameeyey
Jambardai Ghazali. Jambardai wuxuu ka mid yahay dadkii Yurubiyanka laga soo qafaashay waagii hore meel Dalmaasiya la yidhaahdo waa Yugoslaafiya gobol ka mid ah. Dalmaasiya ayaa laga keenay dabeetana nimankii haysan jiray mamaaligtee Masar haysan jiray nin ka mid oo Qaitbay la odhan jiray ayaa xoreeyey maamulkii mamaaligtu ka qayb galay. Tuubanbay ninkii la odhan jiray cahdigu madaxda ka ahaa Masar ayuu waxoogaa ka mid noqday madaxdii sare. markii dambe dawladda mamaaligta uu Saliim alawal ama ninkan aabihii Sulaymaan al-Qaanuuni aabihii uu dagaalka ku bilaabayna wuxuu ka mid ahaa isaga iyo nin Khayr Bay la yidhaahdo oo isna mamaaligta ka mid ah oo Xalab haystay. magaaladan Xalab la yidhaahdo la dumiyey ninkii madaxda u ahaa. labadan nin waxay ka mid ahaayeen nimankii taageeray Sulaymaan al-Qaanuuni aabihii. dabeetana Sulaymaan al-Qaanuuni Khayr Bay wuxuu u dhiibay Masar inuu noqdo waaligeeda. ninka kanna wuxuu u dhiibay Dimashq inuu waaligeeda noqdo. markii la yidhi boqorkii Saliim ahaa wuu dhintay. Saliim nin adag buu ahaa. wuxuu yidhi war wiilkan yara cusuba meesha qabsaday wiil ma aha wax badan kale og. saa daraaddeed ayuu wuxuu bilaabay tamarrud inuu gobolkiisa goosto. dabeetana xidhiidhuu sameeyey. wuxuu xidhiidh la sameeyey Khayr Baygaasi oo Masar haystay oo weliba uu tahdiidaadka badh ugu daray isagoo hanjabaya. isaguna meeshii uu joogay wuxuu la baxay al-Malik al-Ashraf oo khudbadda magaciisa lagu akhriyey. maxaa la yidhaahdaa lacagta magaciisu ku daabacday. wuxuu kaloo xidhiidha la sameeyey dawlad safawiya dawladdii shiicada ahayd Ismaaciil Shaah ama Shaah Ismaaciil ninkii la odhan jiray ee safawiga ahaa ayuu xidhiidh la sameeyey isagoo waaligii Baghdad ee shiiciga ahaa sii maraya. wuxuu isku dayey inuu la xidhiidho Fabrizio de Careto ninkii la odhan jiray oo ah jasiiraddii Rhodes la yidhaahdo oo aynu dib uga warrami doonno gaalkii madaxda ka ahaa. weliba qolada gaaladii waxay u soo dirtay markaa musaacadaad ku saabsan hub iyo dakhiira ayay ku soo kaalmeeyeen. wuxuu qaatay fikrad ah inuu Suuriya qabsado oo Falastiin qabsado oo kadib Masar qabsado oo khilaafadaba uu hungureeyo markaa inuu isagu yeesho. Khayr Baygu la xidhiidhayey muu rabin in la kala googooyo dawladda islaamiga. saa daraaddeed ninkan warkiisa wuxuu u dirayey saltanadii. wuxuu kaloo kiciyey ninkani duruustii jabalu Labnaan degganayd. Bayruutna wuu qabsaday. wuxuu isku dayey markaasi inuu ballaadhsado magaalada Xalab la yidhaahdo weerar ku qaaday. muslimiintii gobollada u dhow Xalab haystay sida Hamaa iyo Xams iyo Trablus iyo magaalooyin ka mid ah ayaa isku soo ururay waa difaaceen. waxaan uga dan leeyahay inaan idin tilmaamo ninkani inuu duufaan rabay inuu kiciyo. waxaa markaasi bilaabmay diiwaankii buu isugu yeedhay. madaxdii dawladda Cuthmaaniya buu boqorku isugu yeedhay. qarar waxa lagu gaadhay in ciidamo la diro. 4 wasiir mid ka mid ah Farhad Baasha wasiirka saddexaad in madax looga dhigo. wasiirkan saddexaadna waa nin asalkiisu Boosniyaayay. yani dawladda muslimiinta ee caalamka oo dhan bay ka koobnayd dadka kala yimi. in Farhad Baasha looga dhigo oo uu qabto gobolkaasi ama ninkaas iyadoo la amray inuu gargaar siiyo Dulqaadir meesha la yidhaahdo ninka haystay. Dulqaadir waa Xalab iyo Diyaar Bakar Turkumaanka u dhaxeeya meesha degan. 4,000 oo askari oo ciidankii gaarka u tababarnaa ee inkishaariinta la odhan jiray iyo 200 oo madfac baa lagu soo daray. waxaa kaloo dhexda laga soo raaciyey sabaahiyada ciidanka la yidhaahdo oo Anadol iyo Karmaan iyo Sivas ka yimi. sabaahiyadu waa fursaan ilqataaciyiin. waa ciidamo ku diyaara gobollada oo fardoolaya oo dhulkaana cashuurtiiya wax ka soo qaada ahna ciidamo diyaaro iyagu mar kastoo dagaal loo yeedho u diyaara.
xalab baa laga soo saaray ninkii alghazali waa la soo eriyaday dimashq buu galay dimashq baa dagaal ka dhacay dimashqna waa laga saaray akhiiran dagaaladaasi buu ku dhintay safawigii shaah ismaaciil ahaa markuu maqlay haziimadii ninkan ku dhacday ayuu isaguna ghazwiin baabuu iska qabtay ghazwiin waa baxru ghazwiinkan xagga sare ku yaalla raashinka hoostiisa xaggaasuu isna isaga durkay farhaad baasha waxaa la faray markaa muddo inuu gobolladaa joogo oo uu ilaaliyo xuduudda koonfureed boqorka cusube markaa wuxuu bilaabay isagu dagaaladii galbeed inuu dib u bilaabo wuxuu qaatay sunnadii awowgii inuu soo nooleeyo moxamed alfaatix ahaa oo ah caalam alislaami mar haddii aabbihii mideeyey isaguna inuu bilaabo futuuxaad furasho dambe oo waddannada galbeeda waddannada reer galbeeda wuxuu diyaariyey markaa ku talagalay 2 goobood inuu weeraro meeli waa belgrad caasimadan hadda serbiya iyo yugoslaafiya caasimadda magaaladan ahaan jirtay markaa majariyiinta xukuma hungariya laga xukuma laakiin waa magaalooyinkii caanka ah ee dunida ka mid ah belgrad iyo rodosna waa jasiirad yar oo dhib badan oo aan gaar uga warrami doono wuxuu siiyey muhiimadda koowaad inuu qaado oo belgrad yurub inuu weerarka ku bilaabo belgrad awowgiisii moxamed alfaatix ahaa waa dhulku isyidhi furo ee aanu ku guulaysanin yurub markaa saynu hore u soo sheegnay iyana boqor dhul ballaadhan haystoo caana baa jooga oo la yidhaahdo aalu habsburg waa boqortooyadii namsa ka talin jirtay markaana boqortooyooyin badan dhaxlay oo isna wakhtigaasi boqor laga dhigay markaa yurub gudaheeda dagaallada ka socda oo francois oo faransiiska boqorkiisiiya francoisgii koowaada iyo charles the fifth ama charles quit ninkan la yidhaahdo carlos alkhamis ama shaaralkan alkhamis dagaallada u dhaxeeya waxay isku haystaan